shirkan amniga qaranka uu shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ah kii lixaad ay isugu yimaadaan golaha amniga qaranka dalka. Ra'iisul Wasaaraha dalka, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, wasiirada wasaaradaha amniga, gudaha, difaaca, cadaaladda iyo dhaqaalaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo hogaamada ciidamada qalabka sida ayaa ka qayb galaya shirkan oo looga hadlayo amniga dalka. Waxaana furitaankii shirkan warbixin looga dhageystay hay'adaha ammaanka dalka. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa si kooban u sharaxay ajandaha horyaala shirkan. bismillaah maanta waxaa qabsoomay shirkii golaha amniga qaranka ee kulankiisii lixaad. waxaa shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay ka soo qayb galeen dhammaan madaxweynayaasha isteediyada. shirka waxaa looga doodayay guud ahaan amniga guud ee wadanka, khaasatan madaxweynayaasha waxaa laga dhageystay warbixin la xiriirta amniga qaranka iyo sidoo kale wasaaradda taliska xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliiska iyo dhammaan hay'adaha kale oo ay qusayso ay ka mid tahay wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amniga. sidoo kale shirka hadda waxaa looga dooday sidii ciidamada qalabka sida oo Soomaaliyeed ay ula wareegi lahaayeen mas'uuliyadda amniga oo hadda gacanta ay ku hayaan badi ciidamada AMISOM. marka shirka lama soo gebagabeen ilaa berrito wuu socon doonaa. wixii kaloo faahfaahinaa berrita ayaan idin siin doonaa. shirka amniga